Soomaaliyey tooso isku tiirsada hadba kiina taag darane taageera weligiine Soomaaliyey tooso isku tiirsada hadba kiina taag darane taageera weligiine asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan dadka channelka ku xiran. Waxaan jeclaan lahaa maanta inaan idinla wadaago sida ugu fiican ama ugu fudud oo aad ku daban karta malayga. Sidaad ogtihiin, malayga wuxuu ka mid yahay cuntada ugu muhiimsan oo marka ay imaado xagga proteinka waa cuntada badanaa oo haddii aad rabtid inaad murqaha dhisto ama miisaanka aad xakamaysid la cuno oo takhaatiirta kula taliso. Sidaa ogtihiinna wadankeena waxa ay leedahay badda ugu weyn wadanka Afrika, waana inaan ka faa'iideysanaa maxaa yeelay kalluunka waa shay zaaid caafimaad muhiim u ah. Maanta waxaan israacnay aniga iyo nin saaxiib aan nahno oo isla shaqeyno. Asaga ayaana waxaan fursad u yeeshay in uu i tababaro oo aan barto sida loo kalluumeysto, si markaan wadanka ugu soo noqdo oo aan doonteydii iyo anigoo diyaar ah oo diyaarsan aan usoo noqdo. Marka hore, haddii aad rabtid inaad kalluumeysatid, waxaa inaad soo gadataa waaye qalabka kalluumeysiga. Sida ujeediyaan, waxaa kaloo muhiim ah inaa haystid qof ku tababaro. Aniga waxaan nasiib u yeeshay in ninkaan isla shaqeyno uu i tababaro. Markii ugu horeysana tababarka alxamdulillah ku guuleystay oo midii ugu horeysa oo aan tuurabo waxaa Ilaahay ii fududeeyay oo nasiib aan u yeeshay in aan gacanta kusoo dhigo kalluun oo insha Allah waana caawa ayaan ku casheyn doonaa. Wax kalena uma aadin, waxa uu aaday waxaa waaye in waa xirfad muhiim ah inaan barto. Aniga waxaan ku dhashay gobolka Jubbada Hoose, ninkii garanayo. Waxaan ku dhashay tuulo yar oo la dhaho Kamsumo, waxaana mara webigii weynaa Jubba. Waxaana ay magaaladaas u dhowdahay magaalada Kismaayo iyo magaalada Jamaamo. Waxayna Kismaayo u jirtaa 90 kilomitir. Waxaan ka imaaday dhul barwaaqo ah. Malayga markaa yaraa waa cuni jiray, laakiin nasiib maanan u yeelanin inaan barto sidii loo dabi jiray. Sidaas darteed ayaan hadda waxaan jeclaystay in intaan xaafadda iska fadhin lahaa mararka aan fasaxa haysto inaan baxo oo aan isku dayo inaan barto. Waa xirfad muhiim ah. Waxaan jeclaan lahaa qof walbo in uu ku dhiirigeliyo, khaasatan ilmaha. Wadankan hadda la joogo oo North America ama qurbaha dhammaan waxaa laga helayaa dad ku tababaro waana raqiis waaye. Waana muhiim ilmahaaga inaad ku tababartid oo waxyaabaha ka mid waxaa waaye inaad u sheegtid oo aad dhahdid waxaa leenahay wadan beri ka maalin markaad tagtid cunugii wax uu sameeyo wuu garanayaa. Galabihii waxaa laga yaabaa magaalo walbo hadda oo weyn bad ayaa ku taalo. Cunugii markii wadankii uu aadayo wuxuu ku talagalayaa in uu soo gato makaadintiisii iyo qalabkii oo lagu dabi lahaa malayga. Waana dhiirigelin weyn ay u noqonaysaa oo mar walba ku weydiinayo wuxuu ku dhahdaa hay goorma aaba iyo hooyo goorma aadina wadankii. Waxaan jeclaan lahaa in aad fursadahaas ka wada qaadataan. Waana waqti fiican aad muhiim u ah. Badanaa ilmaha waa ogtihiin wadamadan qurbaha waxay ku mashquulaan isticmaalka